السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waa baahinta Burji Media. Bariyahan daba waxaad moodaa in madalaha bixinta ama lagu yagleelayo aqalada meherada ah inta badan lagu soo qaado dhinaca siyaasadda taas oo aynu leenahay dadyoga inta badan hawshaasi ay gaarka u tahay ama wiilka ka socda ama gabadha ka socda waxay inta badan ku soo casuumaan siyaasiyiin kala duwan baxdhaqameedka yani ku kala qaybsan dhinaca siyaasadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaad moodaa Soomaaliland guud ahaan xaflad kastoo la qabanayo iyo meel kastoo markaas la isugu yimaadaba in marka lagu soo qaadayo ay tahay dhaliilaha kala duwan ee guud ahaan dalka loo soo jeedinayo waxaana ku qurux badan tahay marka wada dhaqameedku uu noqdo fiilkiisa ama waxa uu ku wajahan yahay inuu hawshiisa ku koobnaado oo kaliya dhinaca aqoon-yahankuna wixii markaasi aqoon uu dibarayo ama uu markaasi soo bandhigayo ee dalkiisa qaybta ay markaasi ka dhaliilan tahay uu ku toosinayo tilmaantana uu ku raacinayo ay ku qurux badan tahay dhinaca siyaasiyiintuna waxa weeyaan qaybaha kala duwan ee xisbigu u dhisan yahay marka aynu soo qaadanayno ee aynu ka gudduulayno dhinaca qabyaaladda oo laga fogaado maadaama dastuurkan uu yahay ka dalka ka dhaxeeya cid walibana ay doonayso inay ku xukunto dalka in lagu kala saaro qaybaha kala duwan ee bulshada oo lagu abtiriyo dadka xukunka ku jira waxay noqonaysaa waxyaabaha keenaya in dadku ku kala qaybsamaan aragtiyo kala duwan oo siyaasiga dantani uu soo bandhigo bahdan dhaqanka halkan cadde gudi ayay nooga muuqda madashu waa madal bixineed laakiin waxa laga hadlayaa waa arrimo siyaasadeed waa baahinta Burji Media fikirkiina waa muhiim haddaan nagu cusubtay subscribe-ka helobin like hoosta noogu dhaaf isma dhaafno la soco baahinaha iyaga kale ee soo socdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ama ha noqoto gadabuusi ama ha noqoto dhulbahanta sidaan u difaacayno wallaahi maan ku dhaartay nin kasta cadaalad iyo xuquuq iyo sinaan baan la doorinay laakiin wax kala jiijiidanaya ay dhaaftay in degdegada seero cid kalaaba rabta waa arrin mucjisaa weyn innagana in wixii yaraa cidi tabanido oo la yidhaahdo deked baan uga baahannahay innagay nusqaanin ugu tahay cidi tabanido oo la yidhaahdo deked baan uga baahannahay innagay nusqaanin ugu tahay waxa weeyaan qorayo kama wada gaadho muxuu baan doonaya keliya inaan yaro calaamadiyo boqolkiiba boqol raggaan halkan ugu dhibay xilalka haya iyo kuwa kale odayaashii hadlayba si sharaf iyo karaamada bay u hadleen waxaad ogaataan ugaaska saaxiibkay ugaas cabdillaahi xareed ayaa dee kulle aragti uu biniaadamku ku kala duwanaan karaa laakiin sida xildhibaanku leeyahay amba lama qabo waxaan leeyahay war dalkan iyo dadkan iyo hilnimadu waxay ku fiican tahay iyo wax wada laanshiyo inaad sida xadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa naftaadu jeceshay walaalkaa la jeclaa annagu ama ha noqoto gadabuusi ama ha noqoto dhulbahanta sidaan u difaacayno wallaahi maan ku dhaartay nin kasta cadaalad iyo xuquuq iyo sinaan baan la doorinay qof kasta wuxuu dalkan ku leeyahay sharaf iyo karaamo iyo damaanad uu dastuurku u damaanad qaaday muwaadinimo muwaadinimada micnaheedu haddaan la isku bahaysano inta lisaaqo faraha la isku fiifiiqo masalan daahir riyaale waxaa ka dambeeyey siiraay وصبي حباب كبير لما كنا ما نستطيع نقول لودي هنا يرانا والحكا وحوطا يحكي لي مركعين إنه نراهنا وحبايد جمع وإنه طلعنا والسيد هو السوبر برياع يعني السوبر برياع أنا قاعد ديار دينا واحد قال ثاني أنا كان هالكا وصومر لي ما هو علينا سنة كذي التفسير كذي وعلي نقصيه هنا نروح ونفسر ويا نروحنا نروح لأدنى waxaan doonaynaa halka ugu sarreeya sharafta ugu sarreeyana ka qaad laakiin haddaan wacdinayna waxaan leenahay maanta maalmahay ciirsan tahay idinka inoo cadaalad samayn jiray halkana dibadda ugu taagi jirtay warawada leh sidee waxayna haddii aanu idin idhaahno waxaan leenahay war maanta qaranku sidii maahe guntiga dhiisha ku xidho waxaad tabaysa waa aragtahay yaan layna ciirciirin waxay maraysaa iska dhaaf Soomaaliland gudaheeda أنا أقول لهم هذا واحد خطأ وين عوين هذا سيدي باقي الله طلع لها ما خطأ سيدي باقي الله طلع لها وبني آدم وطول يحل ورسول ما هم بقول إنك عت الله يسوع الله طلع هذا إن أنت باقي الله هذا نبض الله أيام دياره وضد كورن ليسوع يجوا وضد كورن ليسوع سودوي سوالنا واحد سوالنا من غريس مركزات كوالها قوة النور تركيا حدثها قلت إلهي ما يهل إنك نغيره هل ما بين وضعه Soomaaliya waa dadkii noo saddex sano noqotay
juqraafiga bameel ay u wado ma walaasana inta kala maarmay ma kala maarmay inta ma walaasana kullu weydinkan canaanayay ورنوع عدالة سبيل يوم تقديش كردومان من إيرانية يرحمان البحكوسو قادان وأوبهنتنا حكوتانا هو جامسان البحكوسو قادان ما ترى إذا قمار مميزة إيرانية إذا كو معتبرية إذا كو لوجي هي محيط قمها إذا كو حالات السنة نقش يكيين تاي وإذا قمار مميزة إن النوع عدالة سبيسانو ما ركتين لما كيسا روحي نقدم دوركر كمان فالبرهان لمركو بوبيه سيغير العادي وحبوبية ورمك إيرانية تلفازو جينو مير بالي لقوة بيري ولوي حقا ولقى الله ويا محلقة كل محوال لقيسان انت هتقرر نوعينتا ودك وحودنا ولوي دك ويسوهم بيا ودك وهم بيا ده إذا واحد لدونين يسوهم بيا ودك وهم بيا دك طلق معي يحدك يهد يلا اسكو معي عقل الدنيا ما تيرو شقيو ما لكم بلغسي وضيا وحي شرع دعاي وحدا ما لك الرسول دي حالة ما تلوجي وحي دعاي وحدا ما لك تمام دين ما در يروح كراي ولا ليال يقتل يقع القوانا أنا مو حنونا markii Soomaaliland inteena wax kala jiijiidanaya ay dhaafteen degdegada seercid kala marta waa arin mucjisaaway والعالم كتاكو ماذا تاكو عالم قبيا مركتين وحي صبها عالم اسكنا تكون وراي انه قارضا كلا خيرات كده وصدق اننا نيجي وحي ني راجع تبلدو ولا يدا كذبا وقبا عنها اننا نسقان وحويا marka aad bad ma santiin sharaf baan naga mudantiin karaama naga mudantiin inaad hogaamisaan baan ogolahay waan ognahay هايسكو الأمور بدنادا لما كانوا سافرين ورنما كقول الكفر تلاقي جريا قول الكفر تكين جريو يجينا كررينا وركنا شوكنا إذا كنا بحيل كررينا